السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودyaal ku soo dhawaada warka subaxnimo xogta cayaaraha qodobada ay kugu soo gudbin doona hadii ay biraad waxa kamid ah Cristiano Ronaldo ogolaaday in Maurizio Sarri uu noqdo tababaraha cusub ee kooxda Juventus. Diego Maradona uu ku maadeystay kooxda Manchester United. Klopp iyo Guardiola oo bedelay Ferguson iyo Arsene Wenger. Manchester United oo raadinaysa inay la soo wareegto weeraryahanka kooxda Frankfurt Sebastian Haller. Kooxda Manchester City, Manchester United, Liverpool iyo Tottenham oo dhammaantooda wada raadinaya ciyaaryahanka James Maddison lagu magacaabo oo kooxda Leicester City u ciyaara. qodobadaasi ayaa warkeena intaynu ku guda jirno idin kugu soo gudbin doona balse daawade haddaad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar. aynu ku horeyno Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu ogolaaday in Maurizio Sarri uu noqdo tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Juventus. Cristiano Ronaldo waqtiyadii ugu dambeeyay si weyn markaa kooxda Juventus macallimiin ugu xulayay isagoo markaa aad u doonayay in markale ay ku midoobaan kooxda Juventus Jose Mourinho oo ah nin markaasi dhalasho wadaag ay yihiin oo Portugiiska iskala soo jeedaan. horena markaasi kooxda Real Madrid ay iskala soo shaqeeyeen ayaa waxa uu Ronaldo hore u sheegay in uu la jeclaan lahaa in Juventus Jose Mourinho macallin ka noqdo. laakiin imika warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Cristiano Ronaldo uu diyaar u yahay inuu ka hoos shaqeeyo macallin Sarri oo kooxda Chelsea markaasi macallin u ah. Sarri ayaa waxyaabaha Cristiano Ronaldo ku xushay waxa kamid ah ayaa la leeyahay inuu yahay nin jecel dhinaca weerarka in kooxda markaasi uu aad ugu dhiso oo markaa si weyn qaab ciyaareedka macallin Maurizio Sarri ay tahay mid markaa dhinaca weerarka u badan. Sarri ayaa waxa uu aad u jecel yahay Aliri shax ciyaareedka isagoo markaa uu jecel yahay inuu ka shaqeeyo oo ah 4-3-3 taas oo keeni karta in Cristiano Ronaldo uu ka ciyaaro weerarka dhexe ama in uu garab ka soo galo oo markaa sidii Real Madrid xilligii uu joogay oo macallin Zinedine Zidane uu ka hoos shaqeynayay qaab ciyaareed noocaas oo kala in markaa uu helo Cristiano Ronaldo ayaa laftigiisa waxa uu yahay ciyaaryahan aad u jecel dhinaca weerarka in uu koox walba isagu markaa u ciyaarayo in aad looga shaqeeyo. Sarri ayaa sidoo kale tusaalooyinka la soo qaatay waxa kamid ah xilligii uu joogay kooxda Napoli in ciyaaryahanka Higuain oo aad u ogtiin inuu yahay ciyaaryahan inta badan markaasi dhinaca weerarka ku wanaagsan balse culeys badan dareemaya 36 gool dhammaan tartamadoo dhan markaa kooxda Napoli u dhaliyay ciyaaryahankaasi taasi oo ka dhigaysa hadii macallin Sarri oo dhinaca weerarka kooxda imika oo macallinka u yahay Chelsea aad ugu liidato hadii uu Juventus tago in markaa wax badan ka bedeli karo. dhinaca kalena Diego Maradona way aragii hore ee xulka qaranka Argentine iyo Napoli ayaa waxa uu markaasi leeyahay kooxda Manchester United xaaladda ayaa aad ugu xun oo waxay u baahan tahay aniga oo kale ay yiri in aan markaasi wax badan u qabto oo aan gaarsiiyo heerkii Sir Alex Ferguson markaasi barasamaadkii kooxda Manchester United uu markaa ka dhigay. Diego Maradona ayaa waxa uu sheegay in xilligan Manchester United ay aad ugu ooman tahay in ay koobab badan ay ku guuleystaan taasina aniga ayaa awoodo ayuu leeyahay in garoonka Old Trafford sharaftiisa dib u soo celiyo oo markaa koobab fara badanna qaanada kooxda Manchester United aan geliyo ay yiri Diego Maradona oo warbaahinta la hadlayay. Maradona ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hadii aniga macallin ah u noqdo kooxda Manchester United ciyaaryahan Paul Pogba oo ah mid markaasi caajizoola ah oo aan kubadiisa wanaagsaneyn aan ka dhigi lahaa ciyaaryahan oo si wanaagsan u ciyaara oo shaqadiisa guta waayo macallin Ole Gunnar Solskjaer waa macallin oo markaasi ciyaartooyda aan sida uga baqaynin taasina waxay keenaysaa in aan ciyaartooyda si wanaagsan u ciyaarin ay yiri Diego Maradona oo markaasi la hadlayay 442 kanaalka lagu magacaabo ayaa waxa uu sheegay in uu jeclaan lahaa in mar uu markaa Premier League macallin ka noqdo isagoo imika ah way arag koob dunida markaa hore ugu soo guuleystay.
dhinaca kalena kooxda Manchester United ayaa waxa ay raadinaysaa bedelka Romelu Lukaku oo u wareegaya kooxda kubadda cagta Inter Milan. Antonio Conte oo ah macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Inter ayaa 80 milyan markaa ku doonaya ciyaaryahan Romelu Lukaku inuu markaas garoonka San Siro Stadium oo ciyaaryahankan u dhaqaajiyo taa oo markaa Manchester Unitedna ay raadinayso bedelka Lukaku iyadoo markaa aaday weeraryahanka kooxda Frankfurt ee dalkaasi Jarmalka ninka lagu magacaabo Sebastian Haller oo marka ay u arkaan bedelka Lukaku waa hadii kooxda uu ka dhaqaaqay. Luka Jovic ayaa dhawaan ama habeennimadii xalay Real Madrid si toos ah u soo bandhigtay oo markaa shaacisay in ay la wareegtay waana weeraryahan aad ugu fiican dhinaca goolilinta oo kooxda Frankfurt u ciyaarayay. haddana United waxay raadinaysaa weeraryahankii labaad ee kooxda Frankfurtna waxay diyaar u tahay in dhammaan weeraryahanyadeeda ay iibiso si markaa iyadana bedel weeraryahanadaasi ay suuqa kala iibsiga intuu furan yahay ay uga faa'iideysato. weli warkeen ayaan ku guda jirnaa daawadayaasha aynu jecelnahay markana Premier League ayaanu aadaynaa taariikhii soo maray oo markaa la ogsoon yahay in macallimiintii waaye aragga ahaa oo markaa 22 sano uu ku sugnaa garoonka Old Trafford macallin Sir Alex Ferguson iyo sidoo kale Arsene Wenger oo isaguna si la mid ah in muddo markaasi ahaa macallimiintii ugu waaweynaa ee Premier League soo maray ay ahaayeen oo aad tusaalooyinka loo soo qaato iyagu ay yihiin barigii 90maadkii iyo waliba wixii ka sii horeeyay. haddaba waxaa la leeyahay dalka Ingiriiska gaar ahaan Premier League ayaa wax weyn iska bedeleen mar haddii labadii waaye arag ee Arsene Wenger iyo Sir Alex Ferguson haddii ay ka baxeen booska waxa bedelay ayaa la leeyahay waqtigan la joogo ee 2019 iyadoo la marayo Jurgen Klopp oo ah macalinka kooxda Liverpool oo dalka Jarmalka u dhashay iyo waliba Pep Guardiola oo isagana Manchester City macalin u ah dalka Spain u dhashay. haddaba labadan macalin ayaa sanadkan waxay ku kala guuleysteen koobka Premier League oo Guardiola ku guuleystay iyo UEFA Champions League oo isagana marka Klopp ku guuleystay taa oo ka dhigaysa in wax weyn ay iska bedeleen xaaladda Ingiriiska gaar ahaan Premier League ayaa sanadan meel wanaagsan soo gaaray iyagoo 4 kooxood marka u tartamayay koobka Europe League iyo Champions League ay ahaayeen 4 koox oo dalka Ingiriiska marka ka soo wada jeeda sida Chelsea iyo Arsenal oo finalka isku arkay koobka Europe League iyo Tottenham Hotspur iyo kooxda kubadda cagta Liverpool oo iyana Champions League isku haystay oo Liverpool iyo Klopp ku wada guuleysteen. taa ayaa waxay ka dhigaysaa in Ferguson iyo Wenger booskooda xilligan Klopp iyo Guardiola ay buuxiyeen. kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waxay kalsooni weyn ku qabtaa inay la soo saxiixato ciyaaryahanka kooxda Chelsea ee Marcos Alonso lagu magacaabo. Atletico Madrid ayaa waxaa la sheegay in markaa ay aad u raadinayso ciyaaryahankan kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka qaranka Spain ka tirsan Marcos Alonso iyagoo markaa ka dhiganaya daafacyada kooxda sanad ciyaareedka soo socda markaa iyagu ay ku shartagi doonaan. 28 jirkan ayaa waxa uu markaasi aad isagu laftigiisa u jeclaan lahaa in uu horyaalo kala duwan uu ka ciyaaro waxaana markaa lagu bedeli doonaa ayaa la leeyahay Lucas Hernandez oo markaa kooxda kubadda cagta Atletico iska iibisay oo markaa Bayern Munich ay ka iibisay oo ciyaaryahankan lagu bedeli doono. ugu dambeyntiina kooxaha Manchester City, Manchester United, Liverpool iyo Tottenham ayaa dhammaantood waxay raadinayaan qadka dhexe ee ciyaaryahanka uga ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City James Maddison sida markaa Daily Star saako ay qortay. 22 jirkan ayaa waxa uu markaasi aad uga dhex muuqday xilli ciyaareedkii la soo dhaafay horyaalka Premier League isagoo markii hore ay ka soo qaateen kooxda Leicester kooxda kubadda cagta Norwich City oo 20 milyan marka ay kala soo wareegeen. Leicester ayaa iyadu laftigeedii ciyaaryahankan u aragta ciyaaryahan wax badan u qaban doona kooxda maadaama sanadkii 2016 ay ku guuleysteen koobka Premier League haddana rajadooda ma xumo. ciyaaryahankan wax weyn ayaa noo qaban doona ay leeyihiin marka ma fasixi doono ay yiraahdeen kooxda kubadda cagta Leicester City.